يا إلى دوجاتان وحيل لو حكومي dadkii geystay fuqeysida yaale dad xukunka idin sheego muna maxamed cabdilaahi ina faadimo ali tadbiis jira waxay maxkamaddu ku xukuntay qisaas dila maxamed axmed cabdi ina muna maxamed waxay maxkamaddu ku xukuntay qisaas dila sakariya axmed cabdi ina muna maxamed 19 jira ina muna maxamed waxay ku xukuntay qisaas dila فرح أحمد عبدي إنه منا محمد استقال يتوجه واحد محكمته كحكمته قصاص دله أفرتها واحد محكمته كحكمته قصاص دله واحد كل محكمته كحكمتي هنا عبد السلام إسماعيل إنه منا محمد تدبي تجراه تاسو شرع يقول لي تبص له حالك كحكمتي يدو عندي ستير تبجر كوين فلد بيجي سته شرع يقول لي إن القصاص وحي كيرنا حرق بالو بدلاي لح حرقاس wuxuu ku bilaabmaya 6 sano ilaa 15 sano marka 10 sano ay lagu dhignay anagoo cuskanay qodobada sharciga dhigay qodobka 436 leeyahay ayaan cuskanay 10 sano ay laga dhignay kalsoon xaaji baxnaan xirsi oo iyadoo ku eedeysay qodobada dilka ah oo ay masabadiisay gabadha muuna la yiraahdo in hore dilka ugu soo xukunay waxaan u celinay xorriyadiisa sababtoo ah baadidoonka ay gabadhaasi baadi doonaysay ay kolbayada daba socotay ay ugu soo dartay kiiskan ka bacdi markii xafiiska xeeraantu waxa diinada keen waayay dambiga ku cadeyn waayay iskuna raacnay in xorriyadeedu loo celiyo sidaas ayaan kalsoon xorriyadeedu u celinay cabdisalaam ismaaciil maxamed ina faadama nuux oo ah ninkii qabay muuna maalinta ku dhacay wuxuu ku maqnaa magaalada Berberiso joogo maba ogeyn muddo bilana gabadha way kala maqleen guriga ma saxajir ka bacdi markii ku dhacay ayuu isagu yimi isaga xorriyadiisa ayaan u celiyay maxamed casal cabdi oo lagu yeedinayay qodobka 297 oo markii baaristu socotay ma jara habaabiyay isla markaana ku sheegay biliiskii iyo ehladii marxumadda u sheegay inuu ku arkay marxumadda tuulada kala badh baadi goobkii markii la baadi goobiyay ayaa wuxuu yiri waxay joogtaa sariga gabadha ku arkay buu yiri tuulada kala badh baaristi booliska iyo ehliyadii marxumadda ayuu ma jara habaabiyay waxay maxkamaddu ku xukuntay sanad xaliga sidaas ayay maxkamaddu xukunka ku soo saartay maanta ay taariikhdu tahay 3 bishii shanaad 014 ya Allah ma hadle maxaa kala diga baa qasab dacwada dilka ah 3 darajo ayay maraa